halkani waa channelka aftahan video production saaxiibada qadarinta iyo qiimaha inaga mudan dunida meel walba oo aad ka joogtaan waqti wacan ayaanu idin leenahay saacaduna waxay abaaraysaa waqtiga aad dhageysan jirteen barnaamijkii subax wanaagsan barnaamijkaasna waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ka baxa channelka aftahan video production saaka xiisa gaara ayuu leeyahay anigoo Cabdilaahi Bilwaana oo ku sugan xarunta warqabadka aftahan video production ay ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaana idin soo gudbinaya ee u diyaar garooba subax wanaagsan انت سريرك حنون وسرم الله كسر صباح وناقسن بسم الله الرحمن الرحيم نبدوية نبدوني دا ميل والبواد كجوكتان اناغو وعانيو idinka oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii subax wanaagsan صباح wanaagsan انت سريرك حنون وسرم الله كسر صباح wanaagsan waxaa soo iftiintay qoraxdii arooriyado shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh waxa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idilo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba umaanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ee inta uusan ku goyn adigu go صباح wanaagsan انت سريرك حنون وسرم الله كسر صباح wanaagsan markale kula wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan qodobada xilligan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo qirtay in shacabkii ay ka niyad jabeen isla markaana uu lumiyay kalsoonidii shalay lagu doortay waa xaqiiqa waana laga aamin baxay khasbiyan maaha boqolkiiba boqol wixii aan ballan qaadin aan samayn doono ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo si kulul u canaantay ciidamada dawladda Soomaaliya oo wax mushaara qaadan 6 bilood ee la soo dhaafay taliyaasha waxaan leeyahay waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagal ah oo keeni karta inaanay isku qatalmin ciidamadu shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho durbadiiba iska iloobay qaraxyadii iyo weeraradii lagu qaaday dhawaan magaalada Muqdisho dad fara badan ay ku geeriyoodeen siyaasiyiinta Abgaal iyo Habargidirna waxay u midoobeen fashilinta dawladda Farmaajo iyo Khayre qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo ee subax wanaagsan magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan صباح wanaagsan انت سريرك حنون وسرم الله كسر صباح wanaagsan aan ku soo laabto barnaamijkii subax wanaagsan mar kale dunida meel walbood inaga dhageysanaysaana waqti wacan ayaanu idin leenahay barnaamijkana wuxuu gaar u yahay channelka aftahan video production waana suurtagal inaad iga dhageysanayso channel kale oo aanan tixgelin copyright-ka isla markaana intuu ka galo magaca aftahan video production uu qoro ayuu kadib kala soo degaa barnaamijkan iyo barnaamijyada ka baxa channelkaasi hase yeeshee barnaamijkan waxaa gaar u leh channelka aftahan video production qodobo xiiso badan ayaa fooda idinku soo haya qodobada goordhow aad maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa qirtay in ay shacabkii ka niyad jabeen isla markaana uu lumiyay kalsoonidii ay shalay ku qabeen goordhow sidoo kale waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo si kulul u canaantay ciidamada dawladda Soomaaliya oo wax mushaara qaadan 6 bilood ee la soo dhaafay hase yeeshee marka hore shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa durbadiiba iska iloobay qaraxyadii iyo weeraradii lagu hoobtay ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho shacabka oo inta badan calafkooda uu noqday dhimasho dhaawac iyo weliba burbur loo geysto hantidooda iyo weliba hoygooda waxaana inta badan ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaraxyo isdaba jooga weeraro aan dhamaad lahayn sidoo kalena ma helaan cadaalad ku salaysan baarista iyo weliba ka hortagida inta ay dhibaatada ku dhicin shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa shacabka kaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya canshuurta siiya waa shacabka kaliya ee dawladda Soomaaliya u soo dhaweeyay sikal iyo laaba waana shacabka kaliya ee weli haysta calanka buluuga markii laga reebo gobolada kale oo inta badan aanan calanka buluuga laga taagin iyagoo gobol walba oo kamida Soomaaliyana uu leeyahay calan gaar u ah calanka buluuga ah ee Soomaaliyeedna uu yahay calanka labaad ee goboladaasi laga tixgeliyo gobolka Banaadir caasimadda Soomaaliya Muqdisho weli waxay haysataa calankii buluuga kaalinta koowaad ayuuna ugu jiraa iyaga ayaana ku dhibaatoobay isla markaana ku baabaa dhibaatooyinka had iyo jeer lagu weeraro dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin danley iyo weliba dawlad aanan dabagal ku samaynin dhibaataynta ama dhibaatada ka jirta geyiga caasimadda ah ee Muqdisho ayaa mar walba loo doortaa
isla markaana gayiga maamusha shacabka ayaa sanadkii tagay 2017 waxay martigeliyeen qaraxii ugu xoogana abid oo ay ku geeriyoodaan dad kor u dhaafaya 1000 qof iyadoo oo dhaawacuna uu intaa ka sii badnaa isla sanadkii tagay 2017 qarax la mid ah ayaa ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho isla sanadkan bilowga ah ee 2018 bishii labaad waxaa Muqdisho ruuxay qaraxyo iyo weeraro isdaba joog oo ay dad fara badan ay ku geeriyoodeen inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ma helin dawladnimo dhameystiran ku aadan dawlad ka naxaysa mas'uuliyiin u damqanaya iyo waliba madax u heelan inay ka hortagto dhibaateynta waxayna inta badan arkaan wasiir matalaya gaashaandhig iyo wasiir matalaya abni iyo ciidamo howlgal sameynaya isla markaana horay u shiiseegaya oo leh qaraxyo ayaa soo socda gawaari ayaa isqarxin doona isla markaana aanan ka hortagaynin qaraxu markuu dhaca kadibna taasi la soo fariista warbaahinta la iska arko iyaga oo u muujinaya shacabka Soomaaliyeed inay aad uga xun yihiin laakiin isweydii shacabka caasimada ku dhaqan qaraxyada ku soo foodlay marka hore maxaa looga hor istaagi waayay waana baahida iyo dhibaateynta inta badan shacabka magaalada Muqdisho ku kalifa dhibku markuu dhaca kadib in ay durbadiiba iska iloobaan xilligan waxay magaalada Muqdisho durbadiiba ilowday maalmihii la soo dhaafay qaraxyadii iyo weeraradii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada Muqdisho waayo malaha goob ay uga dacwoodaan malaha madax ay si toos ugu tagaan oo yiraahdaan dhibaateyntan bal xal loo keeno waa shacab samir badan inta badanna dulqaadkoodu uu yahay 100% subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa si kulul u canaantay saraakiisha iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo 6 bilood la soo dhaafay aanan qaadan wax mushaara ra'iisul wasaaraha oo shalay la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa si kulul oo cod dheer ku yiri badbaadiya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho hubka iyo canshuurta la qaado ayuu yiri ra'iisul wasaaraha kelmadaasi dib u dhuuxa waxa uu yiri shacabku waxay ku doonayaan in wax loogu qabto haddaba ra'iisul wasaaruhu wuxuu iloobay in shacabka magaalada Muqdisho ay fahamsan yihiin in canshuuraadka laga qaado aan loogu qaban ammaan xaqi aan loogu qaban howl arrimo bulsho sida helitaanka ammaan dhameystiran shacabka magaalada Muqdisho canshuurta laga qaado looguma faa'iideeyo haba sheegin dhankii arrimaha bulshada sida helitaanka dhaqaatiir nadiif ah oo inta badan si mutadawacnimo ah ummadda ku dhaqan magaalada Muqdisho wax ugu qabta iyo sidoo kale ma helaan adeegyo waxbarasho oo ay ardaydooda uga faa'iideystaan waa kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo 6 bilood ciidamo aanan mushaar qaadan hortooda ka sheegaya hadalla inta badan shacabka Soomaaliyeed ka yaabiyay ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay hubka la idin diibay iyo canshuurta laga qaaday shacabka Soomaaliyeed waxa la ka doonayaa inaad ku badbaadisaan ummadda mana la doonayo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha hubkaasi inaad isku adeegsataan oo aad magaalada isku risaasaysaan iska horimaad ciidamo u dhaxeeyana mar walba dhagahaygu ay soo gaaraan waa sida uu ra'iisul wasaaraha hadalka u dhigay waa kan Khayre oo sheegaya inta badan hadallo shacabka magaalada Muqdisho ay u arkaan riwaayad aan waxba ka jirin laakiin marka hore inta aadan amniga sugina waa inaad adkaysaan wada shaqayntiin qalabkan iyo qoryahan dhaqaalaha canshuurta ummadda Soomaaliyeed laga aruuriyay oo idinka la idinkugu dhiibay inaad amniga ku sugtaan waxaan idinka iyo taliyaashiinaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan qalabkan waxaad u haysataan inaad uga difaacdaan ummadda Soomaaliyeed cadowga ijaafeeyay ma ahan inaad idinku isku khaldantaan taliyaasha waxaan leeyahay waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagal ah oo keeni karta inaanay isku qatalmin ciidamadu sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ciidamada iyo taliyaashooda inaad ka shaqaysaan sidii magaalada Muqdisho amnigooda uu ku noqon lahaa 100%. xukuumadduna waxay idinla garab istaagaysaa wax walba u baahantiin ciidamada halkan jooga waxaan leenahay idinka la idinka rabaa inay shacabka Soomaaliyeed idinku hurdaan subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan
weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan goordhow waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo si rasmi ah u xaqiijiyay in bulshada Soomaaliyeed ay ka niyad jabeen isla markaana uu lumiyay kalsoonidii lagu qabay shalay waxa uu madaxweynuhu iftiimiyay in fashil uu soo food saaray xukuumadda oo isaga madaxweynaha ka yahay goordhow ayaadna maqli doontaan balse marka hore siyaasiyiin ka soo kala jeeda Habargidir iyo Abgaal ayaa isku baxaysanaya in ay fashiliyaan dawladda ay hogaaminayaan Farmaajo iyo Khayre waxay siyaasiyiintan ay doonayaan in ay marqura meesha ka saaraan siyaasiyiintaasi dalka hogaaminaya isla markaana kala ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maadaama siyaasiyiinta Habargidir iyo Abgaal aysan ku qanacsaneen habka iyo saamiga ay wax u qaybinayaan waxayna aaminsan yihiin siyaasiyiintaasi in dawladda ay 4.5 ku dhisan tahay hase yeeshee habdhaqanka ra'iisul wasaare Khayre iyo Farmaajo ay u socoto oo kaliya in lagu tunto xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladnimada Soomaaliya waxay siyaasiyiintan isugu jiraan xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya qaar wasiirro ah iyo waliba qaar ka mid ah siyaasiyiintii dalka soo maamuli jiray isbahaysigooduna waxa uu ku salaysan yahay sidii marqura loo heli lahaa xukuumad ay aaminsan yihiin inay kaga wanaagsan tahay xukuumadda uu imika madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre dadaalka iyo ruculaynta ay ugu jiraan fashilinta Farmaajo iyo Khayre waxa uu had iyo jeerba soo food saaraa fashilo kaga imaanaya dhinaca xildhibaanada kale ee aan ka soo jeedin Habargidir iyo Abgaal oo inta badan fashilaya hamigooda siyaasadeed ee ku aadan danta ay ka leeyihiin fashilinta Khayre iyo Farmaajo hase yeeshee sanadkan 2018 ayaa u ah siyaasiyiintaasi fursadii ugu horeysay ay u helaan si fudud u fashiliyaan Farmaajo iyo Khayre rajadooduna waxay imika iftiiminaysaa in ay ka qabaan mid 100% ah in Khayre marka hore mooshin lagu tuuro kadibna Farmaajo lagu xijiyo waa sida ay aaminsan yihiin wixii ku soo kordhana barnaamijyadeena kale ayaad ku maqli doontaan waa haddii aad ka mid tahay channelka Aftahan Video Production subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo nasaaka waxa uu shaaca ka qaaday in shacabka Soomaaliyeed kalsoonidii ay shalay ku qabeen maanta uu lumiyay waxa uu madaxweynuhu iftiimiyay shalay in aad loogu kalsoonaa isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay aaminsanayeen inuu mar uun ka samata bixin doono dhibaatada haraysay iyo waliba dagaalada aan dhamaadka lahayn iyo xogaga argagixisada al-shabaab oo dib weyn ku haya koonfurta Soomaaliya Farmaajo ayaa qirtay waqtigan in dawladda laga niyad jabay wuxuuna iftiimiyay dawladdu inay dadaal wado hase yeeshee ay u muuqanayso shacabka Soomaaliyeed kalsooni dhammaystiran inaynan waqtigan ka haysan waa kan Farmaajo oo si kooban uga hadlaya runtii ballanqaadiyadu inta badan waxay ku beesgaraysan yihiin anigu aan qaaday baahida dadka ilaahay rajada nagama qaado ummadda inaan rajo gelino annagana aan is aaminno inaan hawsha qaban karno waa xaqiiqa waana laga aamin baxay khasbiyan maaha 100% wixii aan ballan qaadin aan sameyn doono subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan dhageystay waad ku mahadsan tahay dhageysiga la socodka barnaamijka intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonana waa Cabdilaahi Balwaan oo idinku dhaafaya subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan